aniga waxaan ahay nin qarankan u shaqeeya aabbahay qaranka usoo shaqey jiray anaa u shaqey doona haddii waqtiga ii saamaxo intaa noolahana waa u shaqey doonaa martidaan horinaad kala hufnaaha qabtiraa u heedlanaa dadweynahaan hanuuninaa بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقو عبد الله براقي وحانا مدح كايت كرادي تيفيقا وحانا صوب بيري وزارة مفافينتا مدلقا جيوغو لحي 10 سنة هدي كهر وحان كمدها شقالي ميشان كشقينا انتاس طبعا وحانا ميشان كو كايتسان laga soo bilaabo konton iyo koodii ilaa lagu keeno 2020ka xog kasta oo dalkeena soo marta boqolkiiba 90 wixii muhiim u ahaa waxaan ku kaydina kaydkan yaala annaga dadaa naga horeeyay oo xogtaan noo dhiibay annagana jiilkii naga dambeeyay inaan u dhiibna rabnaa haddii ilaahay na gaarsiiyo dabcan waxayna noqon doontaa xog qof kasta oo Soomaaliyeed ay heli karto ay baaran karto research laga sameyn karo meeshan waxa ku jira haday ahaaleen suugaan haday ahaaleen taariikh haday ahaaleen siyaasad dalkeena marxalad walba oo soo maray waxa laga heli karaa kaydka radio Muqdisho oo muddo ka badan nus qarni jira oo xogtiisana laga dhexeli karo dabcan waxa joogay dad oo odayaal ahaa oo xilliga dawladdu soo shaqeynayay waxa kamida ninkii madaxa kaydka ahaan jiray Abshir Xaashi Cali la yiraahdo wuxuu soo badbaashay dhammaan wixii meeshan yaal asay gacantiisa ku jireen dabcan wixii burburkii ka dambeeyay ilaa laga soo gaaro 2011 ilaa intaan la soo gaaro asaa dhex joogay asaa ilaalinayay asaa wixii boor la ka jafaayay annaguna waxaan ka mid ahayn dadkii gacanta ku soo dhigay ee uga dambeeyay asaga soo barbaariyay aniga waxaan ahay nin qarankan u shaqeeya aabbahay qaranka usoo shaqey jiray anaa u shaqey doona haddii waqtiga ii saamaxo intaa noolahana waa u shaqey doonaa dabcan annagana waa nala ka dambeey doonaa jiil cusubaa jira nin walba jiil u dhiibi doonaa marka waxaan mar kasta ku baraarujinaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay taariikhdooda waxooda dib u raacaan si qor isku dhiib ay u noqoto taariikhdan dib loo qoro way u baahan tahay qof kasta oo tabarteeda iyo awoodeeda la Soomaaliyeed fikirna wax ku leh uu u baahan yahay qarankan waxaan hadda waa cajal qolof weyn waaye dabcan hadda ka soo qaadna cajalkan 75 la tiriyay maantana waa kayd yaala oo cid kasta ay heli karto oo qoftii iska lahaa Yusuf Aadan Allah u naxariistay awas goobani la yiraahdaa 1975 waa 30 bishii labaad 75 ayaa la kaydiyay marka fursadda maanta qof kasta uu heli karo waxaan waa wax taariikheed oo qof kastana yeelan karo marka badbaadina way u baahan tahay jiilba jiil u dhiibi doonaa mar kastana waxaan ku talinaynaa dadka iyo dalka si loo badbaasho in xogtan qof kasta gacan ka geysan karta uu dhinaciisa ka qayb qaato